qeyb hore oo ay taageerayaasha Arsenal neefta ay ku dhaganeed isla markaana cuqdad ay ku jirtay qaybtii labaad ciyaar guul ay ka gaareen ay la ciyaareen kooxda Leeds United laakiin casharro muhiim ayaan ka baranay naadiga Arsenal ayaa iska xaadirisay wareega afraad ee FA Cup-ka kadib guul ciriiriya oo ay ka gaareen kooxdaasi lagu magacaabo Leeds United qaybtii hore nasiib ay ku lahaayeen Arsenal in natiijada ay ku dhamaato barbardhac bilaa goolal ah goolal birta ku dhacay goolayaha oo badbaadiyay fursado ay qasaariyeen Leeds United mar hore ay ka adeegan lahaayeen kooxda isdhisaysa ee macallin Arteta xidiga lagu magacaabo Socrates oo markii ugu horeysay garabka midig laga ciyaarsiinayay kulankani waa uu ku fashilnaa booskaasi maxaa yeelay laacibkani Gabis ayuu ahaa sababta keentay in Arsenal qaybtii hore ciyaarta guud ahaan laga haysto 65% waxa u sabab ahaa qadka dhexe oo gabi ahaanba maamulkooda lagala wareegay kubad degdegsiimo leh isla markaana ciyaar taabasho oo min hal second oo ay sameynayeen kooxdaasi lagu magacaabo Leeds United dabcan Arsenal qaybtaas hore waxay soo bandhigeen mid kamid ah qaybihii ugu xumaa ee xil ciyaareedkani laakiin qaybtii labaad ee ciyaarta dabcan macalinka lagu magacaabo Arteta waa xariif reer magaala dabcan waxa uu ogaaday sababta qaybtii hore looga fiicnaa waxa uuna ciyaartooyda amray in kubadda aysan cagta ku daahin isla markaana ay dadajiyaan taa oo keentay in ugu dambeyntii gool qaladkooda ay lahaayeen daafaca kooxdaasi Leeds United ay dhaliyaan laakiin guud ahaan wali calama su'aal ayaa dul saaran haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan subscribe rukumo gambaleel